بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بداوضيال meel kasta ay joogtaan ku soo dhawaada shir jiraa'id oo gaar ah oo ay qaban doonaan gudida qabaqabada iyo agaasinka xuska munaasabadda 18 May oo iminka ku sugan fagaaraha ama stage-ka xarunta lagu xusayo xuska munaasabadda 18 May gudoomiyaha gudida qabanqaabada munaasabadda 18 May ayaa hogaaminaya gudidan Maxamed Kaahin Axmed ayaan u dhiibi doonaa mikrofoonka isagoo halkan kala hadli doona bulshada reer Soomaaliland isla markaana fariinta ugu dambeysay ee ku aadan xuska munaasabadda 18 May ayuu wasiirku halkan ka jeedin doonaa sallallahu alayhi wa sallam bulshada reer Soomaaliland waayeel iyo dhalinyaro ciroole iyo caruur waxaan marka ugu horeysa ku hambaleynayaa dabaaldega xuska 18 May ee koobiyada guurada xorriyadda Soomaaliland ka soo wareegtay walaalayaal waxaynu ku jirnaa maalinta dabaaldega ah qaran waliba maalintiisa qarannimadu ilaaliya qaran waliba maalintiisa dabaaldega ee qarannimadu xoojiya waxay naga maarmaana saacadda imika aynu joogno iyo wixii ka dambeeya horta dadka waxaynu doonaynaa inay si wanaagsan ugu dabaaldegaan koobiyada guurada Soomaaliland waa kow waa laba waxaynu u baahannahay inay dadku meel kasta ay joogaan qof waliba ilaaliye ciidan ah muwaadin ah oo nabadgelyada ilaalinaya inuu noqdo waxaynu doonaynaa qof waliba inuu si fiican ula shaqaynayo ciidamada amniga ee qaranka reer Soomaaliland oo wixii xaalad ah iyo wixii arrin ah uu iyaga la socodsiiyo waxaynu u baahannahay dhammaan gobollada iyo degmooyinka iyo caasimadda waxa ka soconaya dabaaldegyadii 18 May dadka markaa waxaynu leenahay aad iyo aad u ixtiraama ciidamada dabaaldega sameynaya nidaamkana aad u ilaaliya qaabka loo sameeyay in loo dabaaldego uu socdana si aad iyo aad u fiican u ixtiraama nidaamka ciidamada nabadgelyadana aad ula shaqeeya dariiqyada ciidamada ha loo baneeyo caawa waxa la joojinayaa dhammaan isu socodka gaadiidka dhammaan gaadiidka waa la joojinayaa barritoo dhan gaadiidku wuu taagnaanayaa gelinka dambe marka dabaaldegu dhammaado ee ciidamadeenna qaranka ee haybadda iyo sharafta leh ay dabaaldegga ka dhammaadaan ee waddooyinka ay ka dhammaadaan ayaynu innakuna maraynaa dhallinyaradu aad bay u isticmaalaan waddooyinka gaadiidka xoog bay u wadaan shilal baa yimaada xilliyada 18 May iyo maalmaha ciidda dhallinyarada waxaannu leenahay si wanaagsan u dabaaldega quruxda dabaaldegu idinkoo waddooyinka ku lugaynayaabay ku fiican tahay waxaynu ku ballamaynaa si wanaagsanna ha loo dabaaldego waxaan hambalyaynayaa ciidamadeenna dabaaldegga maraya ee qaranka reer Soomaaliland saraakiisha hoggaaminaysa xaasaskoodii iyo carruurtooda shicibweynaha reer Soomaalilandna waan hambalyaynaynaa wasaaradda warfaafinta iyo telefishanka qaranka raadiyo Hargeysa telefishanada kale iyo miidiyaha kale ee reer Soomaaliland iyagana waan hambalyaynaynaa waxaan leenahay munaasabadda si wanaagsan ay noogu dhacdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag daawadayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ahna gudoomiyaha gudida agaasinka xuska munaasabadda 18 May oo fariintii ku saabsaneed xuska munaasabadda 18 May la wadaagayay bulshada reer Soomaaliland عبد القادر عبد الله نور يا عول عبد كاهن تلفزيون قرن كسومالان هرقيسة